Assalaamu calaykum waa salaamay asxaabta. Hadday tahay markii koowaad aad soo booqato YouTube-kan, magacaygu waa Cabbaas Jaamac Ali, waxaanahay macallin dhiga luqadda Ingiriishta. Haddaan dib idiin xasuusiyo asxaabtii hore ugu xidhnayd YouTube-kan, waxaa jira koorso cusub oo aynu soo gelinay in bilaa ka hor, kaasi aynu ka soo bilownay dhigashada luqadda Ingiriishta halka ugu hooseysa. Haddaba maanta waxaan soo gelin doonaa casharkii shanaad ama afraad aan idhaahdee ayaan soo gelin doonaa. Hore waxay nagu socotay cashar hore uu ahaa possessive adjective. Maantana waxaan dhigi doonaa possessive pronoun. Haddaba ardaygii hore u soo daawaday casharkii hore wuu u fududaan doonaa casharkan inuu fahmo. Arday waxaan kugu dhiirigelinayaa linkiga hoose description-ka ayaan soo dhigayaa casharkii hore ka soo daawo. Haddaba aynu toos ugu soo laabanno casharkeena. Hore waxaan u soo qaadanay sifooyin lahaameed oo qofku ku sifaynayo wuxuu leeyahay. Possessive adjective waxay sheegayeen sifo ah inaad sheegi karto waxaad adigu leedahay, inaad tiraahdo that's my car, kaas waa gaarigaygii adigu aad leedahay. Isaga waa gurigiisii, this is his house, kana waa gurigiisii. Waxaynu soo aragnay sidaad u odhan kartaa iyaga, kuwaasi waa iyaga lacagtoodii. Dharkan waa dharkaygii. Waxaasoo dhan casharkii hore ayaynu ku soo aragnay. Haddaba ardaygii cusub uu casharkan markaas ka bilowday laga yaaba in fahamku ka fogaado. Waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad taabato linkiga hoose soo daawo casharkii hore. Haddaba possessive pronoun maxay yihiin? Maxayse soo kordhinayaan? Keliya waxay soo kordhinayaan ardayow halkii aad ka sheegi lahayd maantaba magac amase aad ku soo celcelin lahayd magac ayay bedelayaan. Halkaad ka odhan lahayd kaasi waa buuggaygii, kanuna waa buuggaagii, ayaa meesha laga saaraya buuggo. Waxaa la odhanayaa kaasuna waa kaygii, kanuna waa kaagii. Magacii meesha buug ee soo noqnoqonayay ayaa la tuurayaa. Si la mida qadadan waa qadadaydii, qadadaasuna waa qadadaadii. Meesha halkii la odhan lahaa lunch ama qada la soo celin lahaa waa laga tuurayaa. Waxaa la doonayaa in la yidhaahdo tan waa taadii, taasuna waa taydii. In layla fahmo waan jeclay intaa. Waayahay soo eeg ardayo markaa halkan possessive pronoun can be used to avoid. Waxaa loo isticmaali karaa in lagaga fogaado repetition soo noqnoqodka by replacing iyadoo lagu bedelayo a noun phrase magaca ku jira jumladda sida book. Aad odhan lahayd kan waa buuggaygii, kaasuna waa buuggaagii. Meesha buuggii baa laga saaraya la bedelayaa. For example, tusaale ahaan, in the sentences jumladda ah he has his problems and I have mine. Jumladda halkaa ku taallay maxay tahay haddaba? Isagu dhibaatadiisu haystaa weeye, and I have aniguna waxaan haystaa mine tayda. Mine waxay sheegaysaa buu yidhi to my problems, dhibaatadayda aniga. Soo eeg example-kan kalena. Is that Johan's car? Kaas ma gaarigii Johan baa? No, maya, it's mine, waa kaygii. Instead of no, it's my car. Halkaad ka odhan lahayd maya waa my car, waa gaarigaygii, ayaad odhanaysaa mine, kaygii. Waayahay example-keena aynu sii wadno haddana. Waayahay another example, tusaale kale. That is not your book. Kaasu maaha buuggaagii. It's my book, waa buuggaygii. Halkaad ka odhan lahayd maantaba soo celin lahayd book iyo book ayaad bedelaysaa. That's mine. Kaasu waa kaygii. Not yours. Kaagii maaha. Ugu dambeyn possessive pronoun wuxuu nagu egyahay halka